الله صلى الله عليه وسلم. صباح وناكسن مالين وناكسن maanta waa maalin khayr qabta ilaa idankiis xilkuna waa daruuraysan yahayo marka hadda banaanka soo mareynay meel walba shir buu ahaa raxmadna way inoo diintaa insha allah. waxaan maanta halkan isugu nimid labada sare inaan halkan ka sheegno maanta arrin muhiima oo Puntland iyo Soomaaliya iyo caalamku ay wada sugayeen. هذه هذا قيمة بدن ويه هذا نورمال هذا الكلمة اللي يراهون قيبتها متاجتها فارين دي حزبي أما أوروك مركب مرة قيبتي سوي سلاك ورئيسان مدة وحين مسوي وذني سيدي وطن كان أو قد اسم لها نظام دولية والدنيا لسيدة يقول لك الله منها إلى أنت حكومة على الدورتي وضع هذا ولا هذا برلمان كا دولة على هاي ولا هذا برلمان كا في مدح الحكومة بيجي جنوري لما يكون يستقال كي أو شيء سوى السعود لكن هذا وين كلام الرئيس يبصحدي برلمان دستورك هي أقول الرئي بلغات كيفات أقول الرئي يبصحدي دستورك ومقعابدي وزارة وزير أقويانا وهوش أصلوح الساري ودي ديلا اللهم حريص دكتور عبد الحسن جمعالي وأحباب الرحمن عاد مري هي أسووها صلدي فاتني كقول يسنين عن دستور كأني دبوا يقول كسمينه سوى قبياه برلمان كيجيلي ودنا عن قبيه كسعوني كميلجاه حياة بدن على دار إسكالها فاتني كقول يسنين إن عند ما يستره ولا ياشي ندبوا سحيان مرة فاتني كقول يسنين إن نفتو قادمه وهل كان ما أنت قولي عن قروح بدنه قولي بها برلمان كان ترى يرى وفديه أو كهل بدو عن مدينة عيد كتيرين بحية وينان تيسا بدن مركي لان سحنا أيه قابتان شيخ يشريف من لو الجوجي الجدير هرب ما أفر بقولي سيدات كهذا سيد السوق قراءي وافق سريع يكون سحيان عالم كجوجي وبجوجي يا شهير هرب ما ردنا وشيخ يشريف ونميدو اسمدي أي جوجينو حيقانك أي جوجان علمدي أي جوجتو كبياشي أي جوجان وبرشدي ريت كايد أي جوجتيو نمول بفديي وعاسحيي وحقوق جوجها سياسيين تو أي فديي كرسور كمحكمة السرية أي فديي ومركي لا سحيي يرى هوستك حاجة ذي وقرار واسحس أنت أصلا جوج جوج بينو هين وهادين على السعودي إن صوماليا إن يكبرتو kumeel gaarka iyadana inaga ka horguuray oo dhameystirnay iyadana inay ka guudo inaan qayb weyn ka qaadanay waan shirar ku qabanay meeshaan hadda aan maanta joogno Garowe gurigaan ma dhisnayn waa ficnaan lahayn waaga dhisnay yahay laakiin meel kale aan ka qurux yarayn baynu ku dhignay oo Garowe ka mid ah saddex shir baynu ku qabanay Puntland oo arrinta ku saabsan afartii tiir oo road mapka oo xamar lagu saxiixay 6 bishii September sanadkii hore mid wuxuu ahaa dawlad wanaaga midna wuxuu ahaa dib u heshiisiinta midna wuxuu ahaa nabadgelyada sugideeda midna wuxuu ahaa constitutional process dastuurka dhamaystirkiisa saxayaasha mid buu qaatay inagu waxaynu hormuud u ahayno leena ku aaminay inaynu hoos garayno oo aynu halbowlo u noqono dastuurka dhamaystirkiisa laba dastuur baynu isku dhinac wadnay كأننا وهذا ما يسترني في شيء أبريل قال كنا شوينا كقبلنا كي دولة الصومالية أنا وحنا على كشير كقبلنا قروا وني قروا تو قال كاي أجريمنت وبحنه ويلا كلام بلاش عالم وحنا لو قدي هو إجد حرمه هذا أفريكان يونيون وأديس أبابا نيروبي لو صار لما يستفي حرانتنا مقدش لو صار صحيحي لبي اللي بعتك يجون بنا ما يسترمي وهي صحيحين صحيحياشي أنا نو كم لهين
nairobi lagu saxeeyay iyadoo beesha caalamka oo dhan ay joogto oo soomaaliya ilaa 21 sano oo burburka iyo dheeraadkii ku jidhay gacanta ku haysay oo inagu aynaan isku fillayn maanta waxaa ka dhashay alxamdulilaahi rabbil caalamiin dowladda soomaaliyeed oo xamar laga dhisay oo madaxweyne loo doortay markii hore rasuulkii markii ilaa shirweyne loo qabtay Kenya iyo kala ra'iisul baarlamaan la doortay madaxweyne la doortay prime minister la doortay golihii wasaaradda haba iska koobnaado isagana shalay baarlamaanka laga ansixiyay intaasoo dhan waxaan isleenahay oo ilaahay maraka yahay haddaan Puntland looga qumin oo gacan weyn laga geeyin waa inaan horseed u noqon waa inaan hawshaas wadin intaas ma hegasheen ciddii ka abaalka dhacda iyadoo taala ilaahayna waa og yahay adduunkuna waa aqoonsan yahay soomaalida aan xasadka ahayn wax garanaysaana waa aqoonsan tahay reer Puntland inay libtaa leeyihiin way og yihiin kumana faansana waajib saaran buu ahaa horena taariikhdu leegadii waqtigeedii iyo xorriyadoonkii waa la yaqaanaa doorka ay ku lahayd hormuudka ahaa marka taariikhda soo noqotay ahayd waana ka sii wadaynaa halkaa gacanna waa siinaynaa iyagana waxaa laga doonayaa mataanihii kale oo Puntland u dhigmi lahaa sida Jubbaland labada webi dhexdooda dowladda ka dhismi lahayd bariga Shabeelle Mogadisho iyo Gaalkacyo koonfurteeda inta ka dhaxaysa inaan iyagana la dhiso oo dib u heshiisiinta oo bilaariskii form mapka oo wali la dhamaystirin bay ka mid yihiin iyagana reconciliation iyo outreach la oran jiray iyagana waa filayna inay soo noqdaan inta haddaan ka gudbo processkii democratization-ka ama axsaabta badan oo aan hore u ballan qaadnay waqtigii doorashada dabeedna u sheegaysa hadda hore inuu ku sheegay aynu wadnay oo ahayd wasaaradda loo qaybiyay guddiyo siyaasadeed loo qaybiyay si u kala dambeeyeen oo ahaa in la dhammaystiro muddadaan xilka annagu aan hayno oo dowladda annaga naga dambaysa ay noqoto dowlad dadweynuhu soo doorto oo qof walba oo muwaadina oo dalka degan codkiisa dib loo siiyo oo codkiisa uu helo oo isagoo uusan oran anigu kuma jirin odayaal caaqilaba wax doortay reerkayga laguma darin degmadayada laguma darin annagu ka mid ma uusan oran ninna uusan inagu ceel qabin ayaanu ballan qaadnay hawsheedina waa wadnay dastuurkaas baana ay ku dhammaystirantay qaybtii hore qaybtii dambena waa midda hadda aan wadno oo ah in axsaabtii shuruucdeedii guddigii doorashada sharcigiisii aan markii hore sanadkii hore aan gudbinay guddiga independentiga ama aan garan raacsanayn sharciga lagu dhisay iyagii aan dhisnay shuruucdii kale axsaabta lagu furan lahaa ay ugu soo horeyso doorashooyinka golayaasha deegaanka oo markaas ururadu hadda la dhisaayo ay u isbedeli doonaan axsaab saddex xisbi oo ugu badanna doorashadaas ka qayb gala wax ka helaana ay noqon doonaan saddex xisbi oo Puntland u talin doonta mustaqbalka arrintaas qaybta aynu kaga lahay annagoo wadna waxaa la soo gaaray waqtigii axsaabtii marka la furi lahaa axsaabtii in la furo shuruucdii aynu dejinnay xagga xukuumadda xisbul xaakimka kuma adkayn waxaad moodaa in xoogaa la adkeeyey hadalla inay ka yimaadeen wax kasta oo bini aadam sameeyo ma dhammaystira wax dhammaystiran qur-aanka baanu aragnay ilaahay soo dejiyo munazalka ah oo aan weligiis isaga dib loogu noqon shakina la gelin xataa xadiidka qaar baa laga shakiyaa wax la kan maaha mid saxiixa saxiix iyo mid shaki ku jira la yidhaahda waa haddii waa kuwii nebiga laga weriyey marka ilaahay qur-aankiisa keliya saxa annaga waxaan qorana sax maaha xoogaa adaygaa ka yimi dad iyagu si xun wax u sheega oo iyagu aan doonayn in nidaamkan xisaabta badan oo dadku awood u soo noqoto inay madaxdooda doortaan diidan oo u badan dadaan qiimo siyaasadeed dalka ku lahayn noocyo kale oo mujtamaca waa iska noocyo badan yahay haddaan waxba ku sii dheeraanayn ay ka mid yihiin iyo maquustayaal kale ay ku jiraan ayaa cillado u yeelay cilladihiina waataan ka saaray guddiga doorashadu waa arkeen way garowsadeen cilladaha waa soo jeediyeen walaa xukuumaddu waa soo gudbiyey idinkuna waa ansixiseen oo waan haynaa sharcigii waa ka faylka ku jira haddii intaa dhammaatay si dadka raba niyada san oo doonaya axsaabta inay furtaan oo annagu mucaaradka waxaan rabnaa axsaabta inuu ka bilaabno waddanaan mucaarad saxa lahayna waddan maaha laakiin mucaarad waa inuu yahay mid dariiqa sharcigaa waafaqsan mid eetikada waxa la yidhaahdo leh xuduud aan la dhaafi karin
anshax hadduu wax sheegaayo si edab loogu sheega si sharcigu ogolya u sheega dal burburin ayaan ku jirin cid ceebayn ayaan ku jirin in loo ogolaado inay axsaabtooda furtaan oo ay helaan balaadfom ay ku hadlaan oo beri markii doorashada la gaalo baarlamaankan uu noqon doono mid axsaab kala gedisan ay mid walba tabarteeda ay ku yeelato xildhibaano fadhiista markaasna la doorto madaxdii dalka inagu weli waxaynu ku soconaynaa nidaamka baarlamentaariga ah oo baarlamaanku awoodda sare leeyahay inuu madaxda siyaasadda isagu doorto waynu ku soconaynaa marka xisib xaakimkii inaga layna ka sugaayey markaan dadkii kale u jilcinnay siday u furan lahaayeen ayaan maanta halankan labada gole aan isugu nimi gurigaan ka dhaxeeya labada gole inaan maanta kaga dhawaaqno ururkii siyaasadeed ee xisbilxaakimka ahaa oo dowladdu yeelan lahayd baan rabaan kaga dhawaaqno maanta haddii ilaahay maanta maalin khayra waxaan hadalka qayb u dhaafayaa guddigii loo qaybiyo isku dhafka ahaa oo xukuumadda iyo ka koobnaa iyo baarlamaanka oo wax walba lagama wada shaqayn karin arrinta ka soo shaqeeyey iyo sarkaal la socda oo isagoo ahaa xogeynta guud oo gacanta ku hayay marka hawshaas wixii laga soo jeediyey oo golaha wasaaradda laftigiisu uu aqbalay aan uga soo sheegnay ma aan codgelino markee sharci maaha waa xisbi inagu aan furanayno aan kulli u wargeliyey guddigu ku wargeliyey naga madaxda ahayna nala socodsiiyaan nagana nala wanaagsan aan aqbalnay ayaan halka idinka sheegaynaa magaciisii iyo nidaamka oo ku socon doono waad ogtihiin markii wax laga bedelay sidii hore waxaa awal qoraa sharciga ah in golihii dhexe oo xisbiga iyo guddigii fulinka kulli lagu keeno markii la registraaraynayo oo guddiga doorashooyinka loo gelinayo haddii golo dhexe lama samayn karo haddaan shirweyne la qaban muddadan haysanaana shirweyne laguma qaban karo golaha dhexena markaa wuxuu doortaa guddiga fulinta arrintaas waxay noqotay marka caqabad waxaanu marka go'aansannay oo ay soo jeediyeen sharcigeenna aan ku gudbisanay idinka iyo annaguba golaha wasaaradda iyo golaha dhexeba in lagu furi karo axsaabta asaasayaasha keliya mar haddii asaasayaasha lagu furo howlwadeennaha jira asaasayaasha magacooda hawsha ku furaaya notaayada geynaya soo diyaar garanaya magacyadii asaasayaasha geynaya dabadeedna registrationkii geyn doona guddiga doorashada xafiiskooda geyn doona sidaasaa xisbiga ku hirgelaya laakiin maanta halkan waxaanu joognaa ku dhawaaqidii broseeskaa yarkaa maalin ama laba lagu dhammayn karo waa inoo dhimayeen waxaan ku dhawaaqayaa oo halkan inii sheegayaa horta xisbiga yuu ka koobmayaa qaybta hore wuxuu ka koobmayaa waa asaasayaasha labada gole oo dowladda marxaaya waa xisbigii dowladda oo dhammaystiran ururka xisbigu hadhuu isbedelaya ururka hadda barakan laakiin dabadeed xisbigu noqon doonaa markuu dhammaado cid laga bixinayaa ma jirto oo la leeyahay ra'yigiisa ra'yigayga ka bedelaa muxuu ahay markuu kabigaga joogsaday hebel baa hebel dugtay hebel baa farka uu furay waa loo siman yahay golaha dhexena waa loo siman yahay laga mid noqdo golaha fulintana ciddii hadhow laga dhigi doono golaha dhexe ay ku xirantaha oo imaan doona ay ku sibantahay shirweynahaasuu ka soo bixi doona waxaa kaloo ka qayb gelaya wakiilada dowladda oo gobollada oo dhan guddoomiyaasha gobollada iyo ku-xigeenadooda meeshii halle iyo meeshii laba leh waxaa kaloo ka mid noqon doona asaasayaasha wakiilada dowladda oo degmooyinka waxaa la is odhan karaa dadweynaha maxaa loogu degi waayo dadweynaha weli xisbigii lagama fulin shirweyne ay ka soo qayb geli doonaan markaasay wixii ka soo qayb gala guddiga golaha dhexe oo xisbiga ka mid noqon doonaan markay shirweynaha yimaadaan guddiga fulintana qaarkood geli doonaan hadba sidii maaragtay ay noqoto markii shirka la qabto muddada iyagaa sheegi doonaan loo qoondeeyey wakhtigusuu noqon doono iyo guddiga fulinta ku-meelgaarka waxaanu dhaafayaa inay sheegaan guddiga hawsha faraha ku haya muddada waxaa la yidhi macluumaad doorashada ay dhacayso bisha may nimanka la yidhaaha dowladaha hoose waxa weeye february sidaa hawsha ku qaban karno february iyo march bartamaho dhexdooda february intaan ka gaaro bartankeeda ilaa akhirkeeda iyo march bilowgeeda rag baa dad baa la soo ururinayaa dadweyne wuxuu ka soo qayb geli doonaa shuruudaha markaan buuxino ugu yaraan 5 gobol in xisbiga hordhaca hal laga furo oo 3 gobol midkiiba laga registraarayo hawshaas gobollada ku wareegi doonta wakiiladeeda waa laga furayaa laamaha kalena waa loo sii gudbin karaa meeshii furanaysa shuruudaha iyagoo buuxinaya sharciga ku meel gaarka oo hadda yaala
oo la soo diyaar gareeyay wuxuu dhawaa ku meelgaar inagu asayaashu ku meelgaar ma asayaashoodu waa xaakimkii laakiin guddiga fulinta ku meelgaar buu noqon doonaa ay sheegi doonaan iyo sharciga ku meelgaar buu noqon doonaa markii shirweynaha la keeno baa la ansixinaya markaa ka bacdi saas noqon doona intaas waa processka inagu inoo dhiman aan mari doono insha allah muddo yar baan ku dhammayn doona hadalla waxaa jira soomaalida ah oo ay yidhaahdaan reer baadiyaha dadkii ahaan jiray meelaha aan markaas reerkaan kibrid haysan dabka madag buu kula baxa madagta waa taqaan madagta waxa weeye qoryaha la isku xoqo adduunka oo dhan waa jiraan universal weeye meelahaasay noqonino dabku saasa lagu helo geed waxaa jira madagtu adag tahay in laga dhaliyo iyo geed ay jilicsan tahay dubbada dabka soo tuura geedka la yidhahdo dhuumoodka madagta dubba waa soo tuura waa fiican yahay laakiin dhir adag baa jira shillinka oo kale iyo quraca iyo lagama dhalin karo dowladdii soomaaliya oo burburtay oo intay magaceedu jirayba sii burburaysay oo burbursanay iyo 22 sano muddo wax yar ka dhiman yihiin haddaynu dabkii adkaa geedkii adkaa shillinka madag ka dhalinay oo dowladda soomaaliya aynu dhalinay iyo dastuur samaynay waxay la tahay dad Puntland waa dhuumood durbada dabka ka soo tuuray dadkeennana waa midaynayna halku dhega xisbiga ama ururka halku dhega waxa weeye nabad midnimo horumar haddaan nabadi jirin midnimo ma jiro markii dadku adeegsan yahay haddaan midnimo jirin horumar ma jiro meesha loo socdaa waa horumar xisbiga ama ururka bilowga ah magaciisa waxaa loo baxshay urur siyaasadeedka horseed wuxuu yahay nabadda midnimada horumarka Puntland iyo tan Soomaaliya labadaba ciina waa ka haddii afgaaraad loo bedelo horseed political association marka hore dabeedna horseed political party horseed calaamadda astaanta waa geedka gobka calaamadda astaanta geedka gobka weeye geedka gobka waa shaqaaleeyay gob waxaa loogu baxshay waa evergreen jiilaal kasta waa cagaaran yahay xoolaha marka meelaha dhirta kale qalasho waa loo laangooyaa waa daaqaan miruu leeyahay waa la cunaa har weyn buu leeyahay waa la harsadaa sidaasaa loogu magacdaray marka waxa weeye ururka ama xisbiga horseedka nabadda midnimada horumarka calaamadiisuna ay tahay geedka la harsado calankiisuna uu yahay caddaan iyo cagaar caddaanku waa nabad cagaarkuna waa barwaaqo iyo horumar waxaa laga fekeray weeye rag khubaraha baa arrintaas u khilaaweeyey haddaynu khilaawani raahno aad iyo aad uga fekeray halkaasee lagu fura haddana sida ay hawshu u soconayso oo loo qabanayo waxaan ku wareejinayaa guddiga intaasoo bishaaraha baan inii keennay aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin dhegaysiga wanaagsan waxaana ku dhawaaqnay maanta oo talaadaha 14 November maalinteena Allah ka dhigo taariikhda maalinteena Allah ka dhigo هذا 400 على الله inuu ka dhigo waxa weeye maalintii asaaska ku dhawaaqida xisbiga ururka ama xisbiga xisbigu noqon doona xisbiga xaakimka dowladda Puntland waxaan aaminsanahay cid walba inuu ku farxayso oo maanta Puntland degan iyo Soomaalida horumarka iyo wanaagga jecel yihiin aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa